والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأنت هلك وربعين تكلا جدسين نقول شوجا وإحنا هلك نسوي دوينينا طبعا كان دنيا كان نرى فدية أو دنيا الرئيس وما لنا امتحان صوب حي وحبر شو حق إفيشن كأي دول مادية عن العذرية دنيا ما أنت سجوتينينا مركاه شو ده حسيفي عن وربعين توقف عفاهين دونا سيد امتحان كي قالين يقاب كي يقول استني سيك صوب حين يحبر شو الله دري مهمة قرن كان يوزع ده وقف فرد ده أقسمه جزء وزع دروسي هو عمر عبد الله هذا أقسمه كسره بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وربعين تكلدون إيو طبعا كان شقالة دلنا يراد كل سيد امتحانك يتذكر كلينا جلسوا قليب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رتي مناسبة واحد دارنتها هاي سجوتين أن كوسي سجوتين إنه طبعاً كي أرضي امتحان كي كاو سومالنا نقول كولستي امتحان كاسوها لحية طبعاً بوس ولا سيء سومالنا سوماليا اللي سيء يد حسين مني سومالنا طبعاً أرضي كولستي وأرضي لنا امتحان في رأي كصوب بحين كن يلا بقولوا أرضي كصوب بحين iyagoo markaan dib u raacnay taariikhdoodina ahaa ardaydii ugu baraydsanayd ee iskuuladii sheekh iyo soosiye ka soo baxay oo kaalmo fiican tacliinta iyo taariikh wanaagsan ku lahaa runtii processkooda shaqaaleyntu xogaa buu qaatay baasaboorada iyo fiisooyinka raagay waxaan halka saxaafadda uga cadeynaa maalinta salaasada inay bixi doonaan inay Nairobi u bixi doonaan iyagoo shaqaale rasmi ah koorsa ay soo qaadan doonaan kadibna ay soo noqon doonaan waxay isugu jiraan shaqaalahani la qaatay cusub air traffic control qolada diyaaradaha soo hagta iyo air drone information service oo ah iyaguna xafiiska cimilada iyo laba arday communication ka runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wasaaradahan waan horumar weyn afartii sanadood hore ee xukuumaddan madaxweynaha ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxay ku mashquulsanayd dhismaha wasaaradaha iyo bilicda si sare loogu qaadi lahaa iyadoo madaxweynuhu sanadkan uu wasaaradaha oo dhan amray in xirfadda shaqaalaha sare loo qaado waxay wasaaraddeedu iyadoo taa ka duuleysa go'aansatay inay tababaro dheeraada shaqaalaha loo diro aqoontooda la dhiso dal walbana wuxuu kaga horumarsay ka kale xirfadda iyo aqoonta ay leeyihiin shaqaalihiisu sida darteed 10 kan arday waa 10kii ugu horeeyay ee wasaaradda matali doona iyagoo ama bixi doona Nairobi waxa ku xigi doona dafcad labaad oo 40 ku dhadhow wasiirku uu ka warbixin doona weekan soo socda iyaguna Ethiopia u bixi doona iyadoo ay istabahayaan rabno inaanu kaga tagno maadaama dhismayaasha wasaaradaha iyo dhismihii dalka oo dhan uu sare u kacay in aqoontii iyo xirfadii shaqaalo iyo horumarkoodina uu la socdo dhismayaasha qurux badan kuwii ku shaqayn lahaa weeye siyaasadda anagoo ka turjumayna ayaanu hawshan u dhaqaaqnay aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa 10 arday sanadkii ay samreen intii ay fiisooyinka sugayeen intii hawshan ay sugayeen iyo iyaga iyo waalidkoodba aad baan runtii ugu hanweynahay waxaan rajaynaynaa markay Nairobi tagaan dalka Soomaaliland la yiraahdo matalayaan oo dadka aanay aad u aqoonin waxa la eegi doonaa kriteeriyadiina akhlaaqdiina commitmentkiina waxa matalaysaan ambassadors batin Soomaaliland matalaya intaas oo kun arday wax la baran doontaan waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa in sumcadda dalkiina la ilaalin doontaan aqoonta la barayana waqti siin doontaan sida u muuqataana dhalinyaro marka hore balwadaha aan lahayn baa haydeen waxa halkan ku soo gaadheen idinko balwadaha ka xaraanaha waxaan isku dardaaraynaa sidii saga ilaalisaan inaydan dadka aad u dhaxgelin waxa la siin doona meelaha hostel oo seexataan wanaagsan waxa la siin doona gunooyin mushaara la siin doona transportation fiican waxa la siin doona caafimaad medical kolba kiini xanuusada waxa soo service waxa la siinaya aqoonta baranaysaan waa hagida diyaaradaha qofku minute kaliya haduu khaldamo laba diyaaradood bay iskaliye looma baa waxay taanka ugu soo baxdeen oo dadkii wastada hal isaga daayay feer kale ay qabtay inay soo baxaan dadka ugu intelligent dadka marka intelligence-kiina waxa kaabaya xirfadii leedii baray marka waxa way xirfada macallimiinta dal cusub iyo environment cusub iyo xogaa challenge bay ka hor iman doona ina challenge-ka ka gudubtaan samir la timaadaan akhlaaq la timaadaan dalkii dadkiinaba ay ku farxaan marka soo noqotaan insha Allah riboodadiina iyo imtixaanaadkiina weekly baa la igu soo diri doonaa inta monthly baa la igu soo diri doonaa halkaas aynu ka wada soconaynaa aad iyo aad baa runtii mahadsantiin safar salaama safar khayr qabaan idin rajeynaya